waxaanu la kulanay wafdigii aan ballansanayn ee siyaasiyiinta Puntland uu hogaaminayay wasiirka Cabdullaahi Maxamed Xasan wasiirka waxbarashada tacliinta sare in uu halkaa iyo wasiirada waa Zeynab Ismaaciil Maxamed iyo xildhibaanka Cali Cabdiwaaxid oo isaguna la socday waxaan ku kulanay magaalada Jingadaanu kadibna halkaa waxaa lagu dhagax dhigay in loo kordhiyo magaaladiina lala kulan in loo kordhiyo iskuulada ku yaalo 2 qol ayaa loo dhagax dhigay tii horena in la hagaajiyo galkiina runtii farxad bay noo tahay inaad marxaanti ka noqotaan ama dhamaanteen aynu marxaanti ka noqono inaan halka kan magaalada tan aan ku dhagax dhigayno 2 kalaas sanadka kan waxaan rajaynaynaa sanad walba wasaaradda waxbarashadu baahida jirta mandaqada iyo gobolka ka jirta sidii ay u fuli karto inay u fuliso labadan qol haddaan dhisno aan aragno in arday badani ay timi oo baahidii ay sii jirto waa ku daraynaa waxaan ballanahay inaan ku daro insha Allah waxaan ballan qaadaynaa inaan idinku eegan doonin oo mar walba aan garabkiina taagannahay waayo madaqadan ka soo wada jeedno inay ardaydeena wax noo bartaan oo ubadkeena wax noo bartaan annagoo dhan bay dan noogu jirtaa waxbarashadu waa waxa kaliya oo adduunka ku kala hormaray waxbarashadu waa waxa lagu kala dheereeyay waxaan waalidiinta ku boorinaya inay cunugooda u huraan inay macalinka siiyaan dhiirigelinta isaguba ilaan waa qof reer leh oo mustaqbal leh oo doonaya maaragtay macallimiinta waxaan ka rajaynaynaa marka halkan la joogo sidii wananka looga ururin jiray inay wanankooda u urursadaan waa isla dadkana wax baraan tuulooyinka waana runtii waxay soo jeediyeen iyagu baanu aad xoogga u saaraynaa in aanu wixii naga soo go'an u soo dirno laakiin waxa daba socda warhooy qolka dadka ka dhaxeeyay ma qof baa hor taagan mise waynu wada leenahay hooy lacagtii aan soo diray meeshii ma ka muuqatay oo ma arki karnaa intuu soo taabsiibaa meesha taala marka aad baad mahadsantahay ku badan kadibna waan ka soo soconay waridaad haddaanu tagnay oo ka mid ahaa goobaha u soconay waa waridaad Jingada iyo Sibaaye magaalada Sibaaye waxaanu u tagnay waridaad maalintaa ku xigtay oo aanu tagnay oo si fiican noo soo dhaweeyeen halkaa ku qadaynay markaanu ku qadaynayna waxa aanu ka warranay wixii aanu diasporada ka wadnay iyo howlahoodii iyo siyaasiyiinta oo ka warramay iyaguna marka waxa weeye waxa xusud midan in wasiirka Cabdullaahi Maxamed Xasan uu halkaa ku xadhigmeen oo waxay ka dhiseen 3 qol aad waa farxad aad u fiican qofku inuu bini aadamka isagu isku dayo oo yiraahdo wax qabso ka bacdi markii uu qofku qabto bini aadam wax la qabtay ma waayo inta maanta haddaad qabateen meel baad joogtaan alxamdulilah odaygu wuxuu yiri meesha awr baan naga beeshay waa run abaaro badan baa dhacay kuwa dhibaatadii inagu aan soo maray kuwaas inay soo maraan ma kuwaas waa inay wax bartaan adduunka khayraadkii dabiiciga ahaa ee ilaahay adduunyada sii jiray wuu yaraaday maanta waxa loo baahay waxa weeye waa aqoon inaan abuuro kuwaas inuu dhaqaatiir iyo injineer laga filayna midda kaleeto waxbaynu bari naqaan laakiin waxba bixin naqaan waa sanaago dhan sidaa wada waxa soo u leeyahay isbaara waxay taala galool ayaa bidkaasi wuxuu leeyahay bidkaashaya ayaa isbaara ma ahay waxa beesh oo layfa waa boqolay meesha anu meel ilaahay hooyo waa talka joogto bawksa meel ila xaabooyin baan ku dhashay kadibna waa la xelisto waqooyi baa la geeyay ka soo noqday habeen quraan u hoyday Hargeysa 10 casho waan haystaa intaana waan la soo xidhiidhay alxamdulillah waxa inaan aragno ardayda oo fakiina runtii oo maanta ay hortaagan farxaddeena dumaysa muhiimadse waxa ka sii jaaliyadii markaan maanta garowe imid runtii siyaasiyiinteeniyo mid ah baanu imid waana kuwaasoo maanta waan soo raacnay muhiimaduna waxa weeye jaaliyadii dabadayda kaga maqnay waa mid haddaa tuhmi kaga jiray iyaguna waa mid aniga tuhum baan ugu jira marka dadkii waddanku mid ma yihiin waan arkaa inaad mid tihiin laakiin wali intaasad kula sii dhawaataan oo xoogaa laakiin waxaan ballan qaadaynaa oon jaaliyadda idinka wadaa dibadda anaan ku dheeraanayn waxqabadka
waad mahad celiseen aad baad u mahadsantihiin waayo annaga wax mahadnaq noo tusaya oo noogu eg inaad carruurtii aad maaragtay runtii lahayn wax baan u soo jirayna aanu horteeda ku aragno intaasaanan geenayaa laakiin waxaan idhi oonu ku adkaysannay intayda joogtaa jaaliyad dibaddu xingalool xoogaa waxbay way yar qoyday aynu xoogaa yar dhaafino resourceka ha la qaybiyo xoogaa baasha marka meeshii ugu horreysa ka soo bilaabay jiingadda weeye waxaan ku xigsiiyey xingalool waan u soo istaagay waa waridaa sibaayana waan u socdaa meel ka sii shisheysana waan u socdaa marka waxay xoogaa xingalool way inkastoo aad iyo aad waa kaftan waa warkii waaba caddeeyey oo halkii uu lahaa casooba uu lahaa bal xingalool dhinaca ka soo mariya dhinaca waa ka soo maraysaa guddoomiyaha jaaliyadda idiin ballan qaaday annaguna ka wasaaradda waxbarasho ahaan insha allah dee intaan waa hirgelinay waxaana rajaynayaa insha allah sanadaha soo socda inaan kordhinno waa kordhinaynaa haddii ilaahay idanka uu ka dhigo waana ku talagelaynaa cabashada kale ee ah macallimiinta waxa laga qabto waa run waa dareemaynaa dadka carruurtan waalidkoodu inuu yahay waalid xoolihii ka dhammaadeen dadku iska durufaysan yahay aad baanu u dareemaynaa wixii waxqabada oo ka wasaarad ahaan iyo ka jaaliyad ahaan iyo innaga oo dhan inagaga aadan qayb baanu ka nahay insha allah waa ka qabanaynaa wixii nagaga aadan waxaan rabnaa marka hadda ka horna aan cabdirashiid ka wada hadalnay horta iskuulka baaxaddiisa in la ilaaliyo aan loo soo dhowaan ilaa 100-200 haddaad u qaban kartaan ilaa iskuulku intan ahaan maayo sanadaha iyo 100 sannadood oo soo socda inaynu ku xisaabtanaan kadibna waxaan u ballannay magaalooyinkii kale aan u soconnay oo ay ka mid ahaayeen magaalada la yidhaahdo Tawakal oo aanu tagnay deegaanka Tawakal halkaasaanu iyaguna warbixin kaga qaadanay ardaydii may joogin mas-uuliyiinta Tawakal guuray biyo la'aan barkadaasa waxaa ku jira 10 foosto 10 foostay 5 reer joogaan wada cabaan gooyada biyaha wax lagu soo dhaamiyaa 150 bay bood joogtaa hadda lagu soo dhaamiyaa biyihiina hadda waa naga gabaabsi intaa guurteena waxay u guurtay xingalool oo waxbarashaan meesha jirin dadka waaweyn markuu qofku gaangaalo ama uu 17 ama 7 jir uu yahay iskuulka waxaa laga geliyaa xingalool bay iskuulka dhigtaa hadda bani ninkana haya ardaydii halkan haya ninkana haya iyadoo ayna jirin iskuul haddaanu heli lahay macalinka annagaa layban lahay macalinkan agtiisa annagaa bixin lahay mushaharkiisa annagii dusha naga saaranahay midda kale meeshu MCH male 13kaas sano ay dhisnayd wax MCH la yidhaah oo daawa male gobolka iyo guddoonka waxbarashada way soo mari doonaan waa laydinku keeni doonaa halkaa waa haddii xilliga waxay ku fiican tahay marka xilli arday joogto dadku ay soo noqdaan oo markaa kormeer yimaado oo markaa la arko tiro fiican markaasaa qolaalkii xataa la qiyaasi karayaa markaa inaynu markaas la sugnona waa yeeli karnaa laakiin aniga ku talgalkaygu waa ahaa inaan meeshan wax ka dhisno waana ka dhisanaa insha allah guuray buu raacay halkaas wuxuu ku dhigaa miyiga lacagta annagaa bixina waa fiican halkaa miyiguu raacaa lacagtana annagaa bixina nimankaa jaaliyadda $150 siiya halkiisaasuu ku dhigaa warwaadahaba iska daa waa sax wixii annagu macallin hadda wasiir macalinku weydiin mayno waxaanu ku weydiin lahaa meesha waxooyigii la fadhiisan lahaa waanu ka tagnay wardheer ayaanu iyaguna oo ardaydii joogto ay wax ku dhiganaysaanu tagnay oo macnaha aanu booqanay warbixinna waxaan ka dhigaysanay community-ga wardheer dalkoodii bay yimaadeen waana booqanayaan waan soo dhawaynaynaa inta kasta nooga sii fiicnaan lahayd innagoo fadhi ballaaran aanu inta noo jiro oo waxbarashada xagga waxbarashada aad bay iyagoo jecel bay ka gaabiyeen waxay uga gaabinayaan duruufaha jira macallinkaan iska bixin karin oo macallimiinta aan iska celin karin maxaan ku idhahday awood aanay u lahayn inay wada keenaan carruurta
laga yaabaa qoyskii 7 carruur ah oo meesha ku soo wada xiriir inay shalay u dhigataa labada dibadda joogtaa duruufta awgood iyaga waxbarashada danaynaya oo haddeer waxbarashadii loo fahmay ama jaaliyad ha noqdo ama dawlad ha ka tirsanaado mid kasta wuxuu u yimid dalkiisa inuu ogaado nolosha lagaga nool yahay iyo meelba sida ay tahay iyo waxa ay u baahan annagu idin soo dhaweynaynaa oo gacmo furan idinku soo dhaweynaynaa idin hambalyeynayna idinku faraxnay imaatinka aad noo timaadeen maanta aad iyo aad ayaa lagu faraxsannahay waxa weeye anagu iskuulka kan intaa maxsinada aad aragtaan oo qayqadyada tahay baa ka dhisan ardada dhigataa waa ilaa 8 guryuhu way ka yari qolku way ka yari yaraantaasi waxay sababtay in qayb gelin mar ay soo galaan qaybna la sii daayo joogta marka ka waramo ardaydaan aragnay runtii aad bay nooga qiraysiyeen maanta wax kalena maaha ardayda aan halkaa ku haynay 2,000 waxaan ka arnay war wax qora oo wax akhriya iyagana waxaad arkaysaa waxaad moodaa in makiimad lagu daabacay soo makiimad lama odhan jirin in makiimad lagu daabacay baad moodaa taa aad baan runtii macallimiinta iyo maamulka siga iyo waalidiintaba aanu ku bogaadinaynaa sida fiican aad u wadaan halkaa insha allah ka wada ardaydana waxaan ku yidhi halkaa hawhaan taagina waxa iga ma badinayo waxaan aad runtii ugu qiirooday qaarna waxaan ku kari weynay war haadhe qora idinkana maasha allah waxa muuqata naftaa kaaga baxaysa war haadhe bal qoro akhri wuxuu ku leeyahay maybe next time marka dambaan samaynaya war balu kaadiyo niyo 2 saacadood wax qoro maya nina waa in yar kaadi anaga iyo waxaanu nahay waalidiin naftaa kaaga baxaysa saman kale ma aha waana kuwa ugu fiican waxaan idinku boorinayaa wanaag iyo quruxda idinka muuqda wax idinka maqan ma jiro alxamdulillah wax idinka maqan waana dadaalaya laakiin maxaa inta ardayda iskuulka Cabdullaahi waxbaray oo ka yimi maamulana u ahaa waxa kamid ah ardayga quraanka intuu dubay aaday soo qaaday number 1 noqday meesha aan ka sheekaynay waxa ka soo baxda arday luntay ma waxa ka soo baxda ardayda noocaas ee number 1 adduunka oo dhan quraankii u qaaday soo wax weyn ma soo nimco ma insha Allah sidaasaan ku maqannay sidaasaan idinku maqannay wixii wax tarana jaadiyada macnaha waan duubnay wiilkan magacnaanaysan buu yidhi halay sheego walba la yidhaa ilaa hargeysa ka soo noqday markaan halka dhibanay wuu duubay wax oo dhan waan la noqonaynaa waan tusaynaa isha inoo macalina insha Allah iyo cudadkiina وانا ان شاء الله وانا دين مقنهي وحنا دي كاكل منه صدق بالله ان شاء الله waxaan ka hadlayaa waxyaalaha kale oo arrimaha bulshada sida biyaha iyo MCH-ka labada noogu muhiimsan ah MCH-ka kiiskiisa hore aan u bilownay xaggana waa noogu yimid wasaaradana waan geynay 6 MCH oo ku jiro waxaan rajaynaynaa in kastoo sanadka aakhirkiisa ay ahayd sidoo Puntland markii waxa la xanaayay sanadka bilowgiisa la warayaa wasaaradaha ay wax qaataan waan diiwaan gelinay wasaaradana waan geynay waxaan rajaynaynaa bisha 3aad intaan la gaarin inuu ku biiro doono MCH-kaas 6 MCH oo Puntland wasaaradda toos uga diiwaan gashan oo saamiga ay MCH-yada kala helaana toos u helo inuu noqdaan rajaynaynaa waa ilaa bisha 3 intaan la gaarin inta ka horeyso baahiyihiisa waxay sida maalinta dhawada kale waa naga soo qaadi karnaa wasaaradda laakiin waxaan asal u arkaynay inaan helno meel uu ku xirmo oo 3 qof gabadha umulisada iyo 2 qof oo kale mishaar noo siiso oo joogto ah oo wax walba oo MCH-yada Puntland ka yimaado uu qayb ka noqdo qorshaha ugu muhiimsan ee taas ahayd wasaaradda wasiirkan kala fariisanay agaasimaha guud kala fariisanay way noo ballan qaadeen dhanka biyaha kale wasaaradda laftigeeda haddii horey survey u sameysay ama surveyga loo sameeyo loo sheegay hadda waa record way yaalaan waa dabagelinaa hadda markaan tagno waa dabagelinaa sanad cusub baan bilaabanayo inkastoo sanadka cusub ay fulaan waxyaalihii sanadka hore la qorsheeyay haddana insha Allah hay'adda biyaha hadda markaan tagno waa dabagelinaa insha Allah waxba iska hagran mayno meesha waxa yaala waxay tahay wax resource-geeda iska yariya xaqada markaan dhex gashid baad ogaanaysaa waxa waa wax hay'ada laga baryayo baahi walba markii la geeyo hadda xildhibaanada wasiirada ay qaadaan meesha geeyaan ama wasaaradda loo geeyo wasaaradda budget ay ku fuliso male laakiin maxay sameynaysaa hay'adaheeda la sii baraysaa cid baa la sii baraysaa wixii waxay qaadanayaan marka process insha Allah anagu dabagal baan ku sameynaynaa waana dabagelinaa haddii Ilaahay aad baan u faraxsan horta waa markii ugu horeysay waa idin cudur daaraya anigana wasaaradaydu wax ka shaqaysaa deegaanka beeraha ma aydan sheegin boholo idinku dhow idinku soo socda beera ma lihidin
نيرسري ما إذا ضربن وحبرشة كهذا ليثار marka insha Allah bidulaahi karim waxaan kula dardaarmayaa inaad deegaanka iyo birta ilaashataan wallahi ya bana waxaan lahaa maxaa keenay hadda mid baan soo marnay mid kale shalay mid baan tagnay intaas haddaad xingalool magaalaysataan caasimad bay noqon lahayd laakiin hadda waxaan wax yar ka fahmay in abaarihii dhacay ma aragtid meel si kaam ah loo degay oo iska degdegay taasna kolleyba waxay disaster ku tahay ama dhib u keentaa waa deegaanka baabuurtii waa badanaysa dhulkii waa ku baaba'aya marka waxaan codsanayaa bal inaan wax kale la abaabulin kuwa jiro oo dadkii aan la kala ceshanay la wadaago oo magaalooyinka waayo magaalo haddaan sii badan xoololay baan nahay xooluhu waxa weeye way tafiirmaanoo mar dhow inay iska bulaalaan baa laga yaabaa ilaahay idinkiis oo hadhow dhibi ka timaada mataqaan deegaankii iyo dhulka xoolaha u roonaa iyo hadda sida loo degay ma aha si deegaan ilaalin ah waxaad moodaa dad diraray oo kala firdha inaynu nahay runtii aad baan ula yaabay ilaa shalay meelahan marayna meel reer yar arrintaas kolley wax dhacay weeye oo haddeer waxba kama qaban karo laakiin waxaan rajaynaynaa in intaa lagu joojiyo kororka magaalada dee dowladda puntland warqaday ka soo saartay inaan magaalo la kordhin oo dad baa iskaga hor yimid oo ku dagaalamay waxaan rajaynaynaa wixii deegaanka oo dhib ah inaad igala soo xidhiiri doontaan waxa kale oo ama MCH ama waxbarasho loo qareemayana annaga dadkayga xaggaa joogaa mid baanu nahay waan u wada qareemaynaa waxaa laga yaabaa in qofba hay-ad saaxiib la yahay ama mataqaana cid ka yaqaan insha Allah bidmillaahi kariim diyaar baanu nahay waa u soo qareemaynaa dumar ahaan gabar ahaan weliba MCH-ka shacabka dowladda dadka loo tilmaamo loo magacaabo oo la yiraahdo adigu hebel wasaaradda waxbarashada ka shaqeynaysaa adigu wasaaradda deegaanka ka shaqeynaysaa waa adeegayaal yaa loo adeegaya marka shacabka loo adeegaya annaguna shacabka u adeegno wixii karaanka iyaga ah iyo tamarta iyada ahna deegaanka inaan keenno oo soo gaadhsiinaa waa biyo kama dhibcaan aniga waxaan ballan qaadaynaa insha Allah ka wasaaradda waxbarashada kulley reportka hadda korna waa hayay haddana hadduu inoo qoran yahay waa noo sii dhiibaysaan insha Allah wixii inaga dhiman oo sabradaha uu ka cabanayay maamuluhu labada class ee dhimantaan oo dhameystiri lahayn iyo deyrka sidii aynu deyr u raadin lahayn oo isugu tagi lahayn wasaaradda waxbaan ka keeni doonaa haddii aan hay'adaha galaangal wuxuu sameeyno waa ka keenaynaa jaaliyaddeena dawladda iyo waa isugu tagaynaa insha Allah marka xagga waa ka dhameystiraynaa waxaa runtii farxad ah in sarfeyga biyaha la sameeyay xildhibaankuna uu ballan qaaday in maaragtay la dabagalo waa dabagelaynaa wixii sarfey hore loo sameeyay macnuhu waxa weeye waa la yaqaanaa meeshii biyaha laga helay biyo ku habboonayd biyuhuna sidoodaba waa nolol waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis in ay arkaan dhib u arkaan in ceelal biyaad oo fara badan ay isu dhowaadaan waxaynu garanaynaa dadkeenna waaweyn Arbogays iyo xingalool aan waxba u dhaxayn magaalana u dhaxayn biyana u dhaxayn xingalool iyo ceelbu aan waxba u dhaxayn magaalo u dhaxayn biyana u dhaxayn sidoo kale ilaa Carmale deegaanadeena aynu garanaynaa ama ilaa dhaxan aan waxba u dhaxayn magaalooyinna u dhaxayn jirin biyana u dhaxayn jirin hadda meel walba magaalooyin 5 kilomitir 7 kilomitir isu jira markay tuulooyinka bataan iyo magaalooyinka baahida waa barataa basaynu ognahay baahida waa barataa dadkuna inta waa ka yaraan jiray oo waa marxaati baa laga wareeyay oo markii inta tani ay xingalool qayb ka deganayd haddana weli waa badan inta xingalool degan halkana bulsho aad badan baa degan waxay ku tusaysaa codka dadkiina waa tarmay ilaahay ha inoo barakeeyo baahidina waa badan markii hore nagu jirtay Sibaaye marka dadkii iyaguna halkaa wareysanay oo aan ku qadaynay waxa weeye waa historical place waa meel history leh oo maaragtay cajiib ah ilaahay baa mahad igu simay maanta inaan Sibaayo dhex mushaaxayo sidaas way marka diaspora ha malaynina inaan unahay diaspora dee waan aqaanaa howlihii dhaqanadii hore gurmalihii Sibaayona waa ka dhaamisay waan ka dhaamiyay Sibaayo waan ka dhaamiyay marka wax la yiraahdaa inta badan magaaladanu magaalooyin badan oo xataa xingalool way ka cimri weynta marka taa in la ilaawo ma sida awgeed diasporadii soo dirtay ama qurba joogtii waxaan u sheegayaa wallahi intaan soo maray dadkaas wax weyn baa ii baxay waayo dadkaas isay iyagoo baahi hayso abaari hayso bay haddana Suuriyada iyo wanaaga iyo dadkaas siday ku soo dhaweynayaan innaguna in yar intaan soo tuurnaan leenahay xisaab baa ka dambaysa aad maartay iyo transparency war waxaas ma jiraan wax weyn bay iska kay bedelay waan idin imanaya assalaamu calaykum xaga kale waa meel qaraabo male waxa lagu cabaabiya dhaamis baa lagu haday jiilaal tahay iyo hadii ay tahay
xariir dhulka ku jirta biyaha uun baa kala dhow wixii lagu cabaa biyo dhaams baa taasina taa weeye hadda dayrtii dhoweyd ma ay qaban dayr ma lahayn guriga kan sida la og yahay guriga dayr lama ahayn biyihii hadda waxay soo joogsadeen buraan iyo ceel buhoo biyo yar ama dibadda ha hayso ama dalka inta xilka u haysay mar hadda dhantihiin sidaas ayaa idinku obodi wool intiini ama wufuud ha ahaato ama ha wada socoto sidaas idinku soo dhaweynaysa idinkuna ducaynaysa maanta dhan deegaanka meesha Sibaay taas waa salaanta iyo soo dhaweynta indhihiina arkay ubadkii maanta mana harsan mana qaday ahay halkaas aad ka arka laga qiyaas qaadan karaa waxa ka soo dhaweynta xagga labaad ee horta haddii hadalku kulay inuu baxo muhiimadiisa isaga un baa taataabta laakiin waan jilcinaynaa inta iyada ka dambaysa waa jilcinaynaa ya adduunkana haddeer raysuma tagay waxaa lagu wada shaqeeyaa halow iyo arag iyo muuqaal ma hayno taas waa siiro waa kaasi lacag haydinba qof la hadla waa siiro odaas waan haysataa haddaad tihiin intii ama xildhibaan ahaada ama dibad ka yimaada ama dalka jooga wada dhalatay oo halka soo booqatay haddaad tihiin siiro wey waxaanu ku jiraa qafilkaa xidhan runtii dhaqdhaqaaqa ragga aanu dareemaynana weli waxba kama hayno dhaliilahana dee waxaanu leenahay waxbay ku leeyihin baanu oran karaa halkaa xadhiggaas waa sababta ugu adag in aynu kalaba warweyn saak halka markaanu ka warweynay ragga iyagii idinka soo horreeyey waxaanu u soo dhaqaaqanay ma war hayaane aad wargeli waxaana laydinku soo hambaliyeynayay maadaama yihiin maanta dad shaqadana Puntland inuu ku jiro oo aan cid uga dambaysaa xagga oo aynu niraano cid kale ma ahaan aanay jirin ha yimaadeen meesha sidii ay tahay hawsha wadnaha oo haddeer daliyo dibad lagu wada shaqaysto baa lambar 1 horta dhaliisha Sibaay ay ka cabanayso ugu ah ama shirkadii hala haato ama cid kale hala haato intaa wax laga kala qabto aanu codsanaynaa haddaan intaa ka sii wado halkan mid ay kaftano qola baa la yiri qolada laas caanood bawaaga hore biyatooni hadday aragtay waxay oran jirtay gobol hana la siiyo war waxaan leenahay wala teena hana la raasho hodanka iyo qolka ateeno hana la raasho taasi waa ka waxba ka fahmay dadyaasha sii faalay tan labaad waxa weeye xagga waxbarashada ka sheekeeyo meesha waxay ahayd Afrika waxa la yiri adduunka iyada ay baxnimada ugu horeysay maantana iyada ugu dambaysa xadaarada dhulka ugu horeysa marka aagan la eego Sibaay laga aasaasay sababtoo dadkii xangalool digay halkan digay baa xangalool guuray dabada intii kale waa ka daba shubantay maanta waxay joogtaa heerka ugu dambeysay bay ka joogtaa waxaan xusaanago halkaas geedkaas qaloocan halkiisa baa waxaan ka sameeyay xoro derbiya rag badan hadda ka fadhiisay maanta waa shaqo xorod buu sameynaya abdigaas waa ku jira ragga qaloo xorod buu sameynaya amarka ilaahay meeshii noocaas ahayd deer baan u sameynay adigu way soo urursanay waxbaan ku bilownay wixii ka baxay hadda waxbay shafeecsadaan waana loogiye waa dad hadeerto wax yaqaan oo wax qorta oo laamaha hay'adaha ku tirsan yimaadaan kontar arday miiga nooga timaadaan 77 ardayna waa joogto waa ardaydan ku xisaabtano aan meel loo guurin ardaydaasi 68 waa gabdho 69 waa wiilal weeye ardaydaasi meesha 4 fasal baa nooga dhisan fasal waxaan u isticmaalnaa xafiis ahaan baan u isticmaalnaa oo tawaashiirta iyo buugta iyo waxaan dhiganaa imtixaanaadka iyo xasan dhiganaa saddex fasal oo kale ayaan ku celcelinaa fasaladuna ardayduna waa hadeer fasalkii 6aad baa ku soo kordhay sanadka fasalkii 6aad baa ku soo kordhay ilaa fasalka koobaad oo noogu badan hadeer ilaa fasalka 6 saddex fasal baan labada gelin ku celcelinaan inta waxa noo sii dheer qol yar oo noogu yaala masaajidka agtiisa noogu yaala aan madrasada u isticmaalo qaybta quraanka u isticmaalo aad sano cidin noogu aan masaajidkana qayb ka goosanay qolka ruuxadiisa dad baa jira waxbarashadii ka waaweynaaday oo habeenkii noo dhigta baa jira waa qol aad u rafaadsan cagdhig ma leh khadiifado baa noo yaala waa rushaynaa khadiifadaha dhiganaa
iskoolka agabka noo yaala hal fasal baa noo qalabaysan inta kale ardaydu waxay noogu fadhiisataa khadiifaday noogu fadhiisataa daaradna nooma leh sida laydin sheegay sidoo kale faliil xabdu biyi waa noo leeyahay oo sanadka wax badan waa qolada reexin golool iyo qolyo ay nagala qabteen xagga suuliyada nooma leh wax suuliya waa naga xidhan suuliyadu wax suuliya nooma leh iskoolka cabdirashiid cali warsame dadkaad ugu yeedhaan qurba joog ama diasporada annagu waan ogolay marka waxaan rabaa in laba erey ka horreysiyo ah 88kii walaalta halkan ka dhaamiyey qaxii ma garanaysaan baacsigii waan halkan ku imi kadibna waan sii gudbay laakiin waan ka dhaamiyey alxamdulillah waan aqaanaa Sibay iyo mas'uuliyiinta aan Puntland inooga imanaya anu waxaan soo arkay siyaasiyiin mid ah waxaan soo arkay qurba joog waxaan ka wada fariin mid ah deegaankana waxaan rabnaa oo aan Sibaayo oo meeshii ugu horeysay ka muuqda inay mid yihiin ma inay mudan yihiin in aad loogu daydo marka taas waa mid aan runtii dhayal u oranayn waad mahadsantihiin laakiin waxaan idinkaga tegaynaa waxaan fariintan wada wax weey waxaanu ku tashoonnaa haddaan qurban joognahay in aan wax ka qabanno jiingada iyo war-idaad iyo Sibaaye markay noqoto xagga waxbarashada siiba waxa laga yaabaa inaanan anteena idiin soo helin iyo towerka aad sheegaysaan communicationka waana arin aad looga xumaado runtii in qofku hadduu emergency ku yimaado xataa aanu miciin helin laakiin xoogaaga tuhmaysaan inaanu soo dhaafinaynaa insha Allah aan kaftamay xingalool halkan baanan keenaynaa iyo labada meelood waa maadsantahay salaam wasiir garoon ku soo dhaweynaya baahida hadda halka jirta ma ogeen xaqiiqatan laakiin si kaftama waxaan iskaga yiri xingalool waa laga cabanayaa goolis waana taas ay soo gaartay cabashada goolis xingalool laftigeeda waxay ka jirta cabasho badan oo dhanka saalka noqoto waxyaalo badan warka wayla ballameen waxay yiraahdeen war wixii xog aad hay sida cabashada adoo wada noo kaalay marka la ballamay insha Allah fariinta hadda aad sheegaysaan waan qaadayaa waan geenayaa goroweyn hadda nala joogay madaxdoodii waan raadinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan baan u raadinayaa xagga kale waxaan ku leeyahay aniga wasaaradda waxbarashada dabagal baan ku leeyahay maanta wasiirku wuxuu ballan qaado inaan dabagalo MCH ka sidoo kale gooni baan u raadinayaa waan iska kaashanaynaa wasiirka iyo wasiiradda dhammaan waana qasab wax loo raadinayaa waa garowana wax yaalo way iska yiriin saahaatee waxaan ballan qaadaynaa inaan raadinayno wax walba insha Allah wix Ilaahay naga soo siiyana halkaas aan keeni doono insha Allah Ilaahay yiraahdo Ilaahay baa iska wax soo qaad kale kana waxaan nala ka rabaa kaliya dadaalkana nala ka rabaa insha Allah taasna waan raadinaynaa Ilaahay yiraahdo rahmatullahi barakaatu runtii cabdirashiid wuxuu yiri 88 baan ka dhaamiyay aniguna 87 baan ka dhaamiyay markaan fanfar ka baxay baan halka vacation iyo runtii waxay ahayd meel ay aad u qurux badan tahay ma qiyaasi karo hadda sida u qurux badnayd waagaas xilli waxay ahayd cajiib oo barwaaqo waliba aan u malaynayo roobo badan oo isdaba jooga inay ku dhaceen marka waxaan siriyaadan hadhow si aad ugu dhaaratid waa ka dhaamiyay iyadii gurmalaba waaga waa ka dhaamiyay marka waan ka xumahay inay maalintii intay joogto hadda waxba aysan ka siyaadin inaanay ilaa inta ceel lahayn inaanay ilaa inta ma taqaan caafimaad iyo MCH iyo waxba aad baan uga xunnahay runtiina waa wax qof walba oo maaragtay uu dareemi karo waxa jira aniga iyo xildhibaanka iyo wasiirka iyo dhammaan waxaan nahay dadka idin matalo oo dawladda idinku jira waxaan isku dayaynaa inaan maaragtay u qareeno sidii wax loogu heli lahaa MCH-ka oo kow ah oo runtii hooyo iyo dhallaanka iyo caafimaadka aad bay muhiim u yihiin sidii aan wax uga bedeli lahayn waxbarashada waxaan ku deeqayaa 2 fasal kuraastood iyo miisaskood oo aan anigu awal wax ku dhigi jirnay xaqiiq oo kaas ayaalaan waan idin soo rarayaa insha Allah bidmilaahi kariim iyaga iyo sabuuradii iyo kuraastaas iyo kuraas plastic oo wehelisa oo kuwaas oo kala ah dhammaan waa idin soo rarayaa insha Allah runtiina aad emotional baan noqday anigu waa maaragtay waxaan dareemayay inay ceelasha waxaan isla haday yalooma waagma macaan bay ahaayeen ma qiyaasi karo ma garanaya kulli in biyo kale la dhaansan jiray laakiin laftirkiina waa in laga fakaro waxaan u malaynayaa reer Sibay haddii ceel doonayaan waa hore la keeni lahaa intaad ka shirtaan bal priority-ga ceelka biyo wali ma laga sahmiyay Sibay agagaarkeeda kulli yalomahan biyo la gaadha soo ma marka ceel
cabdirashiid qorsayna waxay tii 87 baan ka dhaamiyey cabdirashiidna wuxuu yiri 88 baan ka dhaamiyey anigu waxaan garanayaa sibaayo oo aan yalooma kaliya iyo laba saddex arish ka dhisan yihiin waan anigu garanayaa inaan yarahay baad moodaysaan oo waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan ninkani waaba yar yahay see waxaa u garanayaa ya marka waxaan garanayaa geedkan inuu ahaa iyo mid kale ma aqaan inuu ahaaye annagoo xoola ka waraabinayno geedka hoostiisa ninkaan ku haysto kaaga loocan buu ahaa miya kaasuu ahaa waa kaa marka intan oo dhan horta anaa uga soo horreeyey oo sibaayo taariikhdeedaan wax ka garanaya soo sidaas maaha bismillah marka runtii waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijka aniga waxbarashada ee igu aadan ka sokow matalaadda aan dee mandaqada tan ku matalo siyaasadda garowga aan ku matalo waxaan aad ugu mahadcelinayaa cabdirashiid oo qurba joogta ah oo ballan qaaday waxbarashadii anigu aan mas-uulka ka ahaa inuu halka wax kaga qabanayo iyo sayna oo sidoo kale ballan qaaday inay laba kalaas ay kuraastii iyo qalabayntii u keenayso marka horta culays bay labadaba iga furteen runtii hadday sidaas tahay oo kalaasyadu inagu yar yihiin waa 4 kalaas baa la yidhi hadday inagu yar yihiin oo leediin kalaasyadu waa inagu yar yihiin oo ardaydeena ma qaadaan anna 2 kalaas baan ku darayaa oo ka dhisayaa meesha labada kalaas markaan dhisnana waa qalabaynaynaa dabcan oo waxoodii waa wataan halka cillada inaga haysataa iskuulka waxay noqonaysaa inaynu derbi ku wareejino horta waxaynu la shaqayno oo dawladdu ay la shaqeeyaan waa hay-aduhuna derbiyada ma dhisaan waayo kharash badan baa gelaya waxay leeyihiin intii kalaas loo baahan yahay derbi lama dhisayo waana fikrad saxa marka saa loo eego laakiinse waxaan is leeyahay inagama dhammaane horena waa u qabannay haddana waa qabsan doonaa derbigeenna intaynu inagu qiimaysanno baynu deyrkeenna intaynu inagu qiimaysanno baynu isugu tegaynaa dawlad iyo shacab iyo magaalada iyo cid kasta oo maaragtay dee dan kale mandaqadda waa isugu tegaynaa marka saasaynu isagana ku xidhanaynaa wixii kale oo inagaga maqan waa runtii waa ka naxay markaad tidhaahdeen anteeno iyo isgaadhsiin ma leh de haddaanay anteeno iyo isgaadhsiin lahayn sidaa dadka kula xidhiidhaan baba la yaabanayo malaha darayga korkiisa loo baxaayo iyadoo la doondoonaan arki jiray meelaha qaarkood ha marka waa dhibaato xildhibaanka khayr allaha siiyo baahidaas iyo gooliso dexingalool baahideeda markii hore looga cawday waxaan u malaynayaa hadda baahidii tanaa kusoo wajahaysa xildhibaan halkana marka sida la sheegayo xuduntii ah xudunteenii oo aan dhaqnayn marka ya xudunteenii aan dhaqnayn waa nin baa maanta ii sheegay wuxuu yidhi sibaaye ma mursal baa qofbaa wuxuu lahaa sibaaye macnaheedu waa biyayar waa biyayarood wax waa magacaasi magac meel kale ah weeyo aniga qudhaydu waa doondoonaya waxaan lahaa talo sibaaye macnihiisu muxuu yahay marka mursal baa wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi afkaasi eraygaasi waxaa laga yaabaa inaanu soomaaliba ahayn inuu xabashi ama oromo yahay oromadii waxay tiri baa la yidhi marka macnaheedu waa meel biyaya oo dee marka haddii oromo taariikhdaa ogeyd oo meesha ay biyayarayd oo biyayarowgaa ya waa ka guureen waxaa kaloo tidhaahdeen xigalool dadka jooga halkan ay ka aasaaseen oo halkan ay ka tageen oo waa sii guureen horta biyayaroodkaa cillada marka biyayaroodka laftirgeeda baa cillada biyaha inaynu wax ka qabanaa waa lagama maarmaan marka waxaa laga yaabaa dadkeenna qaarkiis haddii la yidhahdo halka karriig iyo ceel iyo baynu keenaynaa dadka qaarkii inaanay jeclayn baa dhici karta oo mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa dee biyuhuna hadda waa nolole ogaada ya xayaad nolosha oo dhammina waa biyihii marka waxa aan halkaa mar kasta nala marayey jiingadda iyo war-idaad iyo sibaaye iyo wardheer iyo tawakal intaba waxaa nala maray guddoomiyaha waxbarashada ee highland iyo guddoomiyaha degmada waxbarashada ee degmada sheekh mursal cali waraabe intaasuba marka labadaas mas-uulna waa nala socdeen waxaa kaloo xusumidan nala socday taliya xuseen oo ah ciidanka jooga aaga xingaloon ee puntland isaguna waa nala socday oo waa ciidankuna saasay noola socdeen waad mahadsan tihiin